بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد محمد أحمد دكتور بانا كسو دوادا جنال كيني دكتور بانا انت اسكدب إن شاء الله وحاهوري أسوي بدني برنامجكي أو هدليني طبانك عذر أيوه بدنا مقالة مقدشة هوري وحاوغو سو هدلني إلا يليح عذر معناتن إن شاء الله وحاك هدلي دونا عذر كي تضواد أو هدلي دونا عذر كليرا دو تي بي شدا أما دادك وحاو يقانين خاحو sidoo kale afka khalaadna waxaa lagu yiraahdaa tuberculosis TB. marka waxaa kaga hadli doonaa barnaamijkan dhexdiisa markuu hore maxay tahay TB, maxaa sababa TB-ga, qaabkee loo daaweeyaa, farqiga u dhaxeeya cudurka TB-ga iyo infectionka TB-ga maxay kala yihiin, iyo qaybta ugu dambaysa oo uu hadli doono talooyin ku aadan cudurkan. intaas kadib marka hore hadaa ku bilaabna maxay tahay TB. TB waxay tahay waa cudur ku dhaca sanbabaha oo sababaha markuu ku dhaco kadib wuxuu sii gudbayaa qeybaha kale kamid ah jirka. sababaha kaligiis kuma ekaanayo, waxaa sababto bacteria la yiraahdo Mycobacterium tuberculosis. badanaa markuu cudurka qofka lagu arko waxaa laga fahmaa bacteriadaas ayaa lagu arkaa baaritaanka marka la sameynayo. TB-ga marka wuxuu kamid yahay cudurada la iskala gudbin karo. qofka wuxuu ku gudbin karaa ilaa 3 qaabood oo ah qofka TB qabo inuu ku dul neefsado qofka caafimaad qaba cudurkan, sidoo kale inuu ku dul qunfaco, sidoo kale inuu ku hindhisho. intaasba waa lagu qaadi karaa TB-ga. TB-ga marka ilaa noocyo badan ayaa jiro. midka ugu badan waxa waaye midka ku dhaca sanbabaha oo la yiraahdo pulmonary TB. sidoo kale sanbabaha kaligiis kuma ekaado, waxaa sii jira TB kale oo qeybaha kale jirka kamid ah oo ku sii dhaco. marka sidee qodobkii labaad daagalna oo ah sidee baa loo kala qaadaa TB-ga. TB-ga waxaa loo kala qaadaa waa hab fudud balse ay ku xiran tahay qofka siduu iskaga ilaaliyo. tusaale kale aad markaa soo qaadano qof TB qaba iyo qof ka caafimaad qaba markay meel wada joogaan, qofka TB-ga qaba hadduu qunfaco oo kale, qunfacaas marka waxaa sanbabaha ka ima qunfaca sanbabahda waxaa soo raacay wax la yiraahdo maxaa la yiraahdaa bacteriyada cudurkan wada oo tuberculosis. bacteriyadaas marka qofka wax sidaa badan ognahay bini'aadamka wuxuu qaataa hawo wuxuuna soo tufaa hawo. hawada uu qofka qaadanayo waxaa la yiraahdaa oxygen. qofka hawada qaadanayo oxygen ayaa la yiraahdaa, hawada uu soo saarayna waxaa la yiraahdaa carbon dioxide. qofka markuu hawada qaato, hawada la'aanteed cid noolaan karta ma lahan walow daqiiqada yar hataa. taas waa wada ognahay. qofka hawada markuu qaato, hawada waxaa la geenayaa waxaa jira process la yiraahdo respiratory system. hawadii waxaa la geenayaa sanbabadii ayaa la geenayaa, alveolus ayaa la geenayaa, kadib blood streamka ayaa la geenayaa, kadib ilaa markuu ugu dambeys laga geeyo tissue-gii oo jirka soo isticmaalo. jirka markuu soo isticmaalo waxay soo noqonayaan wasakh ayay soo noqonayaan. kadib jirka waa laga soo saarayaa, haddana waxaa la keenayaa blood stream, tissue ayaa laga soo qaadayaa, blood streamka la keenayaa, kadib waxaa la keenayaa sanbabadii, kadib qofka wuu soo neefsanayaa. hawadaas uu qofka soo neefsado waxaa la yiraahdaa marka carbon dioxide. marka qofkii uu qunfacay kasoo qabo hawadii, markuu qunfaco hawadii waxay galaysaa bacteriyadii ka timaatay sanbabadiis. qofkan kale maskiinka ka caafimaad qaba hawadii ayuu qaadanaya marka oxygenka. hawadii wuxuu qaadanaya marka oo bacteriyadii la socdo, sidii ayuu ku galayaa jirkii, sidii ayuu ku qaadaya marka cudurkan. sidaas ayuu lagu kala qaadaa. balse waxaa jiro qeybo qaar oo aan lagu kala qaadi karin cudurkan TB-shada, balse dad qaar ay u malayaan in loo kala qaado. waxaa kamid ah tusaale kale qof TB qaba ama TB-sha qaba ayaa weel ku caway biyo. qof ka caafimaad qaba isla weelkaas hadduu biyaha ku cawo cudurkaas sidaas mu ku gudbaya. sidoo kale waxaa lamid ah qofaa weelku inaa ka wada wax hal weel oo ku wada wax cuntaan qof ka caafimaad qaba iyo qof qaba iyadana ma lagu kala gudbin karo cudurkan. sidoo kale qof shay taabtay oo TB qaba, qof ka caafimaad qaba isla shaygaas hadduu taabtana sidaas lagu kalama qaado cudurkan. waxaa kaloo sii dheer qofka TB-ga qaba intuuba qaadanayo daawooyinka looga hortagayo TB-ga ama daawooyinka TB-ga intuuba qaadanayo, intaas in la eg qofka cudurka ma gudbin karo. intuuba qofka daawada qaadanayo TB-ga ma gudbin karo. intaas hadaa ugu baxno sidee lagu kala gudbin karaa, waxaa galaynaa marka hadda maxay tahay marka farqiga u dhaxeeya cudurka TB-ga iyo infectionka TB-ga. waa laba shay oo kala duwan. hadaa ku hormarno cudurka TB-ga. cudurka markaan dhahno
waxaa dhahayna qofkan waxaa laga arkay jeermiskii ayaa jirkiisa laga arkay jeermiska waliba wuu soo jeedaa wuu shaqeynayaa waxa keenaya marka calaamadaha TB-ga waxa uu ku keenaya in lagu arko waa marka jeermiskaas oo soo jeeda calaamadaha si gaar ah hadli doona balse wax yar ayaa ka hadlana oo ah qofka tusaale oo kale qunfici oo kale lagu arkaa hindhishtii oo kale lagu arkaa body weight-kiisa inuu ama qof buura markuu inuu caata naqda ayaa la arkaa calaamadaas qofka way kasoo buuqanaysaa marka ay tahay cudurka TB-shada sidoo kale qofka cudurka markaas wuu gudbin karaa qofka caafimaad qaba wuu gudbin karaa markay tahay cudurka TB-ga ama markay tahay infectionka TB-ga da u imaano infectionka TB-ga waxa way qofka marka ugu horeyso TB-ga jirkiisa wuu ku jiraa ilaa bacteria ma shaqeynayso bacteria active ma inactive waa bacteria haddaysan shaqeynaynin qofka calaamadihii ma ka soo muuqanayo oo ah qandho zaid ma ka soo muuqanayso qufac ma ka soo muuqanayo body weight-kiisa ama culeyskiisa jirkiisa inuu isdhimo ma ka muuqanayo cudurkana wuu qabaa taasna waxa keenaysa waxa way jeermiskii ayaa shaqeynayna qofka sidaas kale ah oo infectionka qaba TB-ga cudurka ma gudbin karaa waaya cudurka ma gudbin karo qofkaas sababtoo ah jeermiskii jirkii wuu ku jiraa laakiin ma shaqeynayo balse qofkaas oo kale waxaa lala talinayaa badanaa in uu qaato in uu aado takhtar uu la siiyo waxyaabaha ka hortagi lahayo cudurkan haddii kale waxaa laga yaabaa mustaqbalka in uu cudurkan uu ku weynaado kadibna uu dadka kale uu sii gudbiyo uu meeshii ay noqoto dad oo wada TB qabo in ay mujtamacii ay noqdaan qofkas xaaladaas oo kale markuu marayo waxaa haboon xaalad fiican waayo oo qofka cudurkii wuu qabaa laakiin ma gudbin karo jeermiskii wuu jiifaa ma soo jeedo isla markaas waxaa waaye in uu takhtar la tashto wixii daawooyin uu qoro iyo talooyinka uu siiyo habkaas in uu raaco waxaa ka hadlaynaa marka hadda calaamooyinka lagu garto cudurkan TB-ga calaamooyinka waa dhowr calaamadood calaamooyinkan waxay ka saman yihiin cudurada kale cuduro kale badan ayay ka saman yihiin balse calaamadahan hadda sheegi doono qofka markuu isku arko uu isaga shakiyo TB inuu qabo isla markii waa inuu aadaa goob caafimaad ama takhtar uu aadaa takhtarkana markuu qofkan ku arko calaamadahan isla markii uu qorayo daawooyinka TB-ga balse waxaa jiro baaritaano badan oo la marsiinayo baaritaanka qaybteeda ayaa uga hadli doonaa hadda marka calaamadihii aan galno calaamadaha kow waxaa ka mid ah qofka qunfac ayaa ka mid ah oo muddo dheer soconayo ku dhawaad ilaa 3 isbuuc ah waxaa kaloo sii raacdo qofka markuu qunfaco xaaqo inay soo raacdo xaaqadaas mar waxaa la arkaa in ay ama xaaqo inay soo raacdo ama dhiig in ay soo raacdo iyadan waxay ka mid tahay calaamadaha TB-ga waxaa kaloo ka mid ah daal fara badan qofkii inuu dareemo sidoo kale waxaa ka mid ah calaamadaha TB-shada qofka body weight-kiisa inuu yaraado qof daciif ah inuu noqdo xoogiisana uu ka dhaco sidoo kale calaamadaha TB-ga waxaa ka mid ah qofkii haweenkii inuu isku arko dhidid badan haweenkii ayuu iska arkaa dhidid aad u badan sidoo kale calaamadaha waxaa ka mid ah xumad zaid ah ama qandho zaid ah calaamadaha sidoo kale qofku waxaa sii raacdo hindhish ama qof hergab iyo waxyaabaha sidaas oo kale inuu dareemo calaamada markaas saas uu isku gudub kasoo gudubna waxaa galaynaa baaritaanka marka qofka calaamadihii wuu isku arkay takhtarkii wuu aaday baaritaankii la marsiin lahaa marka TB-ga waxaa loo baaraa habab aad u badan waxaa jira qalabyo oo la isticmaalo mararka qaar oo ah marka DNA qofka laga baarayo oo u baahan process badan la marayo qalabkii oo qiimo aad u badan ku fadhiya iyo dadkii aqoontiisa lahaa oo u baahan marka cudur sida malaarida oo kale maan oo ama sida cudurada kale yaryarka oo kale maan oo qofkii markii subaxdii la baaro galabta isla markii jawaabta ka qaadanaya waa ka halis badan tahay waana daawooyinkiisana waa arki doonaa qaabka loo qaadanayo wayna ka daawooyin muddo dheer badan tahay marka baaritaanka hadaa u imaano baaritaanka waxaa jira ilaa dhowr qaabood sida hadda hore u sheegnayba qaybta koowaad ee badanaa la sameeyo waa qofka in laga qaado xaaqada waxaa sheegnay cudurkan in calaamadiisa hadda markaa soo hadlaynay qunfac oo la socda xaaqo xaaqadaas marka qofka markuu xaaqo ka timaado xaaqadii waxaa lagu shubayaa weel waxaa la geynayaa qaybta shaybaarka isbitaalka ama goobta caafimaad uu markaas taagan yahay marka shaybaarkii ayaa la geynayaa ama microscope-kii xaaqada marka waxaa la dhigayaa under microscope ama weyneyso ayaa la dhigayaa waxaa laga baarayaa marka bacteriada keenta TB-shada in ay ku jirto xaaqadiisa ama inaysan ku jirin hadday ku jirto waxaa xaqiiqo ah markaas qofka inuu qabo TB-ga waa qodobka koowaad taas waay
iyadoo saas tahay marka wali qofka ma lagu sii degdegay oo taawooyinkii TB-ga isla markii ma la sii siinay haddana qofkii waxaa loo sii dirayaa raajit ayaa la saarayaa waa la fiirinaya marka dhankan iyo feeraha iyo waxaas ayaa laga fiirinaya hadii ay cilad ka jiraan hadii kale adii dhakhtarka ayaa ogaanaya marka si asiga uu fiirinayo haddana hadduu sii arko dhakhtarka inay wali ciladaas sii jirto wali waxaa sii jirto baaritaan kale oo ah midka la baarayo DNA-ga dadka qaar waxaa laga yaabaa DNA waxaa la inay DNA waxaa laga soo gaabiyey deoxyribonucleic acid waa ka hadlayna hadda haddaan waxay u baahan tahay mawduuc dheer iyo waqti dheer insha Allah isaga barnaamij gaar ayaa ka dhigan doonaa marka haddaa u soo noqono DNA-gii qofka ayaa la baarayaa marka waa mashiin weyn ayaa lagu baarayaa dad oo waxaa u baahan tahay aqoontiisa leh marka iyadana waxay tahay marka waxa ugu weyn oo lagu shaki baxo waa DNA-daas marka la baaro kadib qofkii ama haddii positive soo saarto waxa waaye haddii lagu arko cudurkii wuu qabaa waaye haddii sanba wax jawaab ka soo bixinna waxa waaye ma qabo marka waxaa ka soo bilaabnay ko TB maxay tahay calaamadihiis waa soo aragnay baaritaankiis waa aragnay daawooyinkiisa galinaa marka qofkii TB waa ka helnay qaabkee loo daaweeyaa marka daawooyinkina qaabkee loo siiyaa TB-ga badanaa maadaama wax walba bacteria keenta badanaa waxaa lagu daaweeyaa antibiotic oo ah daawooyin qalajiye in la isticmaalo balse qalajiyaalka la isticmaalaya kuwa hadda aan naqaano farmashiya ama meel walba yaal oo ma ahan waa qalajiyaal oo tayadiis aad u sareyso iyo qofka markaas dhakhtarka qoray ee ku xiran tahay khibradiisa iyo aqoontiisa halkay gaarsantaa markaas marka daawooyinka markuu qofka dhakhtarka u qoro qofka buka oo TB-shada laga helay daawooyinka badanaa waxaa loo qaataa muddo 6 bilood ah 6 bilood ayaa la qaadanayaa daawooyinka loogu talagalay TB-ga badanaana daawooyinkaas qofka marka loo qoro waxaa la ilaaliyaa laba shayba waa laga ilaaliyaa marka ugu horeysa oo ah daawooyinkii in ay qofka ka kala go'aan tan labaad oo ah waqtigii qofka loogu talagalay daawooyin oo dhakhtarka ku amray inuu ku qaato inuu ku qaadan waayo labadaas haddii laga waayo meesha haddii sida la rabay oo dhicweysa waxaa dhici karto qofkii daawooyinkiisii in ay ku naqdaan jirkii in ay la qabsadaan oo qofkii hadhow daawadii markii loo baahday ee waxba ka tari weyso oo jirkii inuu la qabsado oo addiction uu ku noqdo jirkii hadduu mar la qabsado daawada effectigiisa ama wixii danta laga lahaay ma laga helayo marka sidaas loogu hortago haddii uu qofka jirkii la qabsadana way adag tahay marka in la daaweeyo sidaas loogu hortago marka waxaa haboon sida dhakhtarka u amray daawada sidoo u qaado ku dhahay iyo waqtiga ku qaado ku dhahay in loo qaato daawooyinkaas marka qofka markay 6daas bilood u dhamaato waxaa ka reeban marka maxaa dhahnaa waxyaabaha drugska ah ama alcoholiska in uu qaato oo kamid ah marka hadduu qofka in uu qaadan aan dhacafon qofka hadduu ahaa qof sigaar cabi jiray ama waxyaabaha mukhaadaraadka isticmaali jiray in uu joojiyo gabi ahaanba sababtoo ah cudurka laga daaweynayo waa cudur halis ah daawooyinkaas uu qaadanaya waxaa laga yaabaa cudurka waxyaabahan kale uu qaadanayo drugska in ay jirkiisa u keenaan effect tusaale kale beerkii oo kale qofkii hadduu drugskii uu qaato beerkii ayuu ka jiranaa beerka marka hadduu ka jirto cudurkan TB-gan uu daawooyinkiisa socdo marka laba cudur ay isku naqanayaan marka waxaa macquul noqonaysa marka daawooyinkan TB-shada qaadashadiis in ay hakad gasho oo cudurkan beerka daawooyinkiisa loo soo jeesto marka taas waa la diidaa marka inay labadaas cudur isdhexgalaan wax loo baahan yahay ma qofka marka in uu ka tagdoonaado ama in uu gabi ahaanba iska joojiyo ayaaba fiican hadda waxaa kasoo gudubnay marka cudurkan waxyaabaha baaritaankiisa iyo daawooyinkiisa qaybta ugu dambeysa ayaa taaganaa oo ah mar walba aan kusoo qaadano barnaamijkeenii oo ah qaybta talada qaybta marka ugu horeysa talada ugu horeysa oo ku siinayo waxay tahay marka aad balan walba oo aad leedahay dhakhtarka qofka TB-ga qaba mar walba waxaa laga yaabaa isbitaalka inuu kusoo laalaabto ama dhakhtarkii uu badanaa uu waqti uu balamiyo balamahaas oo dhan qofka waxaa laga codsanayaa in uu kadib marin ama uusan dhibsanin dhakhtarka balamihiisa badan sababtoo qofka wax laga talinayo waa caafimaadkiisa tan labaad oo ah qofka waa in uu qaataa maalintii ugu yaraan markay uu yartahay 3 waqti oo cuntaa iyo qofka sidoo kale waxaa la talinayaa in uu qaato 5 ilaa 6 ilaa 7 koob oo biyo ah qofka waxaa laga yaabaa waxiisa inuu si fiican u qaato cuntooyinkiisa haddii ahaaleed sidoo kale talada kale waxay tahay qofka tusaale kale marka hadda soo sheegaynay calaamadaha waxaa ku soo sheegnay qunfac in uu leeyahay cudurkan qofka markuu qunfacayo ama hindhishayo ama xitaa markuu qoslayo hataa waxaa laga yaabaa waxaa loo baahan yahay in uu
afka iska xirto ama tiish inuu ka isticmaalo ama safaleetigiis inuu isticmaalo. muhiimad waxay tahay asiga wixiis inay ku adkaato oo environmentiga uusan saameynin. intaas ayaan kusoo gabagabeynayna insha allah barnaamijkii oo aan kaga hadlaynay cudurka TB-shada. aad ayaan ku mahadsantihiin la socodka iyo daawashada barnaamijkeenii. hada billahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.